بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير تودي السلام يا دي لهانتي ملك استوى جوكتان سودو هذا أصحابي سودو هذا وياهي wararka caawa iga soo gaaraya magaalada Beledweyne gaar ahaan xerada lama galaay waxay sheegayaan in caawa halkaasi taag oo ka jiro xiisadna ay ka jirto lagana cabsi qabo in halkaasi ay xabad ka bilaabato waayahay kooxda Kirshabelle uu hogaaminayo ninkii Cabdullaahi Sufrow ayaa maanta gudaha waxay u galeen xerada lama galaay waxa ognahay xeradaasi in ay talis u ahayd ciidanka militariga qaybta shanaad ee gobolka Hiiraan ku sugan iyo maamulkii hore oo uu hogaaminayay Cali Jayte oo halkaasi xafiisyadiisii iyo ay ku shaqeynayeen halkaasi ay fadhiyeen kadib markii Cali markaa xilkii waraaq 6 saac habeenimo ka timid Cali Guudlaaw xilkii looga qaaday halkii ayuu ku habsaday ninka la yiraahdo Cali Jayte wuxuuna ku dhawaaqay maamul yiraahdo Hiiraan State xafiisyadii halka ka shaqeynayay ee gobolka sidii hore ugu shaqeyn jiray isla sidii ay xafiisyadii Hiiraan State ugu wareegeen Kirshabelle markaa oo uu hogaaminayo Cabdullaahi Sufrow waxay walwareegaan ba waxay iska dhaadhiciyeen oo ay ku talamayeen hadii jeer in ay tagaan ama ay la wareegaan xafiisyada maamulka gobolka maanta ayuu daaqiri marka qaybta soke ayuu ka dagay walow qaybta shishe oo xagge ay wali ay joogaan mas'uuliyiintii Hiiraan State halkaasi markii maanta uu tagay gabaldhicii galabta marka xogaa taag ayaa bilowday sababtoo ah laba maamul weeyaan waxa meesha isku xareysan oo aan isla shaqeynay ama aan is arki karin waxaana suuragal markii inay xabad ka bilaabato xilli kastaba waxa marka caawa sida wararka aan ku helayo dad baa ku dhex jiro odayaal ah sidii labadan qaybood qayb meesha looga kaxayn lahay qaybna ay ku hari lahayd waayo xerada lama galaay ma wada deeqdo laba mabda qolooyin kala aaminsan Hiiraan State iyo Hirshabelle dad kala aaminsan meeshaasi kuma wada noolaan karaan mana wada joogi karaan walow aan ognahay canshuuraadka in ay labadooduba ay qaataan magaalada ay ka qaataan laakiin bartii xudunta ahayd ayaa la isugu yimid hadda oo gudaha la isugu soo galay Kirshabelle hadda ayadaa duulaanka ah ayadaa gardarrada bilowday Hiiraan State ayadaa halkaasi waa ognahay in xaruntii markii ay burburtay qaraxidii ku burbureen in ay dhisteen oo halkaasi madaxtooye ay u ahayd muddooyinkii dambo Hiiraan State hadda markaa duulaanka waxa wado oo bilaabo sheekadan waa ninkii Cabdullaahi Sufrow Cabdullaahi Sufrow marka waxaan ognahay aqligiisa iyo siyaasadtiisa inuu ku socon laakiin gadaal laga riixayo dad doonayo in dadkaani ama reerkaani islaayo siyaasadooda ayuu ku shaqeynayaa ninkii Cabdullaahi Sufrow oo ku socda waxaan leenahay marka Cabdullaahi Sufrow dadkana isku gooynin magaalada waa la wada joogay si nabada lagu wada joogay laakiin intii la isdaba mariyeeyo gudaha hoose ma lisla maamulnayn banaanka kore waa la isla jooga magaalada kantarooladiina canshuuraadka waa ka kala qaadanaysan oo laba dhinac ah laakiin haddaad tiraadeen xafiisyadii hoose oo gudaha ahay ayaan kala wareegaynaa maamulkan Hiiraan State la magac baxay meeshaas waxaa ka imaanayso dhibaataa ka imaanayso mas'uuliyadaasna kuleetaba waxa waaye meel la'aan ma dhacayso dad baa qaadanayo koow cidda qaadanayso Cabdullaahi Sufrow adiga ayaa dulmiga hadda wado ninka ragga meesha jooga ugu tagay maxaa ka doonaysaa magaalada way weyn tahay dhinacaad ka joogtay dhinacaad ma ka joogto ka deganaatid maxaad ka doonaysaa nimanka meesha xogaa jaafto xaaqday oo dhistay aniga gudoomiyihii gobolka ah anigaana ka talinayo xafiistaas dhan la wareegayo warkaas uu egyahay waana war Cali Guudlaaw kugu soo shubay mana laga yeelayo Hirshabellena cid taageersan malahan adbu waa ogtahay reerkan aad ka dhalatay dhammaantiisba Hirshabelle ma taageersano reeraha kale gobolka la degan qaarkood ma taageersano Hirshabelle marka gobolkaani kama shaqeyn karto Cabdullaahi hadda waxaad ku joogtay in adeero waa ku joogtay laakiin waxa u maleynaa sheekada inay isbedesho inay isbedeshaan u maleynaya aniga xaaladda
dhan kale u wareegto haddii aad adigii dulmi iyo duulaan aad waddo oo aad ku baacsanayso meelihii ay ka joogeen Hiiraan State mas-uuliyiintooda aad leedahay maamulkani ma jiro kamana shaqeeyo magaaladan kamana jiro gobolkani anaa gobolkani xukuma aad leedahay adeero gacali wuxuu waa ragna hadday wax kaala dhexeeyaan yaa dee kolaytaba igu orod ma aha igu soo orod ma aha wuxuu waa rag marka Cabdullaahi Sufurow dulmiga asaa hadda bilaabay haddii wax dhacaan oo ay dad ku leedaan waxa kolba tuuka ah ninka cayaartan bilaabay cid kale walahan waxba laga weydiinay asaga wax laga weydiinaya yaa marka Cabdullaahi yow dhabarka laga soo taabtay waa ogahay waana dareensanahay anigu waan dareensanahay dhabarka ayaa laga soo taabtay Cali Guudlaaw iyo dabageed iyo balaayo iyo baqti Kirshabeelle ayaa dhabarka soo taabtay in lagu baxrayaa rabaa dalka dawladda uu leeyahay maxkamadaana jirto shaqaynayso yaan dhiiqo lugaha lagu gelin maamul faasid ah oo meeloo ka shaqeeya aan jirin oo ummadii dhammeed ka hor timid oo nacday oo isbaaristayaal ah oo argagixisada la shaqaysto adeero gacaliye yuusan dadka kugu dirin ani taasaan ku dhihi lahay wax kaloo aan ku sheegayo haba yaraatee ma jirto yaan dadka lagugu dirin yaanan dambi lagu gelin 36 dhexda yaa laga istaajin waxaa lagula raadinayaa waxay tahay inuu dhib dhaco lisdilo lislaayo adeerow marka waxaan ku leeyahay hadda waxaa tahay bilaa dambi la'aan bannaankaasaa joogtaa cagahaada dambi ha ku raadsan oo lagugu maxkamayo maxkamad lagugu geeyo hadda bannaankaa taagan tahay wax dhiba iyo cidaa dhib u geysta midna ma jirto cashuurtaada iska guro maamulka hiiraha baalka ee Hirshabeelle iska sheego cid kugu heysata ma lahan laakiin haddii meesha aad isku daydo inaad wax maquuniso oo halkaasi fawdo iyo dhibaato iyo dagaal iyo baalkii dil uu yimaado cidda wax laga weydiinaya adiga weeye adaa bilaaba sheekada qolooyinkan ayagoo yani bartoodii fadhiyo adaa raasado cagahaada ku doonta u tagi adigaa lama gaaya dalaq yiri marka waxaan ku leeyahay inaad yaro gacan yaa lagu baxrayn Cabdullaahi yaa lagu baxrayn Cali Guudlaawe waa saqarjaan waa dambiile waana gacan ku dhiigle 24 saac wuxuu ka shaqeeyaa ummad iska hor keeno Cali waa ka maskax badan tahay waana ka aqal badan tahay waana ka reemagaarsan tahay waana ka aqoon badan tahay kuma dhawo laba nin ayaa kala tihiin nin iyo nin la'aan ayaad kala tihiin caaqaas adeero gacali baxriyo ku gelina ku dhiilaa aniga reebaadiyaha jaahilka yuusuf baxar ku gelin iska ilaali bahasha dabaasha baro siyaasadana fahan maamulkan Kirshabeelle run ahaantii markaan dhabta aan ka hadalno ma aha maamul gobolkaasi laga taageersan yahay shacabka degan ay ka taageersan yihiin ma aha in yaroo caada qaatayaal mooyaane dadka shacabka populationka gobolkaasi degan Hirshabeelle ma taageersano mana doonayaan marka laguma qasbi karo shacabka laguma qasbi karo waxaysan rabin laguma qasbi karo maamul aan meelo ka jira aan la aqoonin on magaca kaliya la sheegay Hirshabeelle kaliya la yiraahdo meel oo ka shaqeeyna adduunka aan la arag adeerow ha ku dakanoobin Cabdullaahi dadkaadi yaa lagu dirin maskaxiya aqliya na aqli badan aan kugu ogaay aniga na aqli badan oo faham badan ayaan kugu ogaay baashiyan laga hoos bixin intaasaan kugu koobaya aniga warwaad islaamiya asxaabta meel kastoo aad joogtaan waxaad leeyahay waqtiga jooga hadii wacnaado muuqaalka sheerta iyo like-ta waa xaqiina haddii aad nagu cusub tahay page-ka follow-ga dhac noo sii oo noo taabo adoo maadsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh